maalmaha ka mid ah safar baan soo galay waxa la yiri waxa la aadayaa cidna uma sheegin hada ogaada waxa la yiri waxa la aadayaa safar Nairobi waliib waxa la yiri diyaaradii waa la keenay walkii Abdul waa la socdaa diyaaradu waa qaali ilaa $30,000 way waxa la yiri diyaaradan waa ina qaadato oo waxaan diyaaradii shacabku maxaa ku dhacay soo ma shaqeeyaan maya waxa la yiri safe ma aho shacabka lama rabo in la dhex galo oo shabaab baa ku soo dhuumanayo waa la qarxinayaa ma lagu dilayaa waa koow oo meeqaal u raaca waa $200 haye dibka kale wuxuu yahay waxa la sii maraa meel wajeer la yiraahdo oo dadka lagu cadaabo lagu dhibo marka madax baa tahayo lama rabo in dadka dhex gasho Abuukar baalo khayr Allah siiyo waa fadhiyaa meesh markii ugu dambeysay Abuukar waa jooga Abuukar baan u yeeray oo staff ma yiraahdo teamkayga ahaa waxa ku yiri Abuukar diyaaradaha caadiga noo buugare 4 qof baan ku bixinaa cidna ha u sheegin annagoo airport ka taagna la arkay dadku waxay soo diyaarad private noo imaanayso oo raaxo badan diyaaradii baan hore ka fuulnay dadka waa yaabeen waxaan ku tagnay Nairobi wax ka yar $800 wajeer baan marnay cadaabkii Soomaalidu ku hayaan baan soo aragnay ilaa waxa loo baahan yahay dadka inay ogtahay dhibka haysta dadkii diyaaradda la saaraa waa farxeen waxay yiraahdeen war ninkii ra'iisul wasaaraha idin la socdaba meeshii waxaan tagnay Nairobi rag odayaal oo meesha waxa joogay safiir ahay iyo dadkii howlwadeennada safaaradda waxay noo qabteen hotel raaxo badan oo haday madaxda ku soo degto Abdul waa la socdaa hoteladaas hotelkii waxa la qabtay executive presidential room yaa la qabtay oo hadaad aragtaan subhanallah azza wa jalla waad yaabaysa waxaan yiri meeshaan meeqa lagu kareeyaa ninkooda wuxuu yiri waa 1500 war waxaan yiri ummadan ka nimid ilaahay waa nagu cadaabaya 1500 hadaan ka bixina meeshaan waxa loogu talagalay ummad baahidi ka tagtay yaa loogu talagalay war anaga ummadan ka soo tagnay waa taqaanaay iga saar meesha markaas yiri ma waa caadiyo dad risaariyaashii madaxweynaha dajinaa waxaan yiri war aniga shacab baan ahay qolka Abuukar bool ma meeqa markaas wuxuu waa 150 war isagoo kale i qabo ma wuxuu dacweynu conference gareeyo war waxaan yiri amar martaan ku siiyay saaxiib ilaahay wuxuu qadaray annagoo saas u rafaadsan farad baa noo furmay wixii markaas ka bilowday khayr yaa noo bilowday wadamada carabta mid kamid ah imaaraadka wax noo bilaabay ma insha Allah waa barakowni dadku waa isku daydaan qofka wanaagsan qofka wax wanaagsan sameeyo lagu daydaa Soomaalidu qofka wax xun sameeyo way ku dayataa ogaada annagu waxaan nahay dad dhexdhexaad ma nihin extreme baan aadnaa ama meesha ugu fiican baan tageynaa ama meesha ugu halaysan tageynaa meel dhex ma lihin nin waxa jiray aniga iga fiicnaa marka nin aniga iga fiicnaa yaa jiray ninkaas wuxuu ahaa nin askari ah waa markaan u bilaawnay shaqaalihii mushahar joogtaa diyaarad baa noo timid oo wada 3 milyan iyo bar oo burcadbadeed u wada 3 nooc cadaan saaran diyaaradii buu galay wuxuu yiri maxay tahay boorsadaan waxa boorsadaan iska dhaaf $1,000 qaado ilaa iyagu waa soo mari jireen meesha markaas waxay arkaan qofka arkaan $1,000 siin jireen wuxuu yiri war kun mar rabay boorsada fura waxay iska dhaaf boorsadaan 10 qaado wuxuu balaayada ku jirto ma naqaan boorsadaani fura horta waxay yiraahdeen 100 qaado waa askari $200 qaata iimaankiisa fiiriya wuxuu yiri 100 qaadan maayo fura boorsadaan waxay la gaareen ilaa $300,000 wuxuu yiri wallaahi waan xiraya kulligiin soo dajiye lacagtii uu qabtay ninkii Soomaalidu hadii saas ahaan leed ka warramo marka ninkaas odaga meesha waligiis waa ka shaqeyn jiray laakiin wuxuu arkay dadku waa wada hadlayaan in meesha hawl fiican ka bilaabatay in amaano ka bilaabatay meeshii